wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ka qayb galay shirkii labaad ee ganacsiga iyo maalgashiga ee Soomaaliya iyo Uganda kaasi oo ka furmay magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa la saxiixday wasiirada dhigooda ee dawladda Uganda dhowr heshiis oo lagu horumarinayo xiriirka labada dal. heshiisyadani maanta la saxiixay waxaa ka mid ah 3 heshiis isfahan oo ku saabsan maamulka socdaalka, waxbarashada, isboortiska, amniga labada dal. wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mudane Faarax Sheekh Cabdilqaadir, wasiirka amniga gudaha mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, wixii hoggaamiyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Aadan Xaadow ayaa dhanka dawladda federaalka Soomaaliya u saxiixay heshiisyadan. waxaa sidoo kale shirka ka qayb galay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Yuusuf Maxamed Aadan, danjiraha Soomaaliya ee Uganda Ambassador Fardoosa Maxamed Qanyare, agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsadaha Mustafa Sheekh Cali Duxulow iyo qaar ka mid ah agaasimayaasha guud ee wasaaradaha qaar. shirkan oo ah kii labaad ee ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya iyo Uganda ayaa sidoo kale looga dooday si loo horumarin lahaa ganacsiga gaarka loo leeyahay ee labada dal, iyadoo madaxda ka socotay ganacsatada labada dhinac ay ka qayb galeen. madaxda labada dal ayaa booqday bandhiga qarweedka ay ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa Uganda ku soo bandhigeen goobta. waxaana muhiimadda shirka warbaahinta qaranka uga warbixiyay xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Xamse Aadan Xaadow. waxaa maanta la saxiixay oo lagu guuleystay la socon isku afgartay heshiiska waxbarashada oo labada wasaaradda waxbarashada ay kala saxiixdeen. sidoo kale waxaa la saxiixay heshiiska u dhaxeeyo amniga labada wasaaradood ay kala saxiixdeen. sidoo kale waxaa la saxiixday immigration management. waxaa isaga maanta ahayd oo wada hadal fiican laga galo meel fiican marayo heshiiska shaqaalaha oo labada wasaaradood shaqada iyo shaqaalaha iyagana ay ka wada shaqeyn doonaan. sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah oo iyagana pipeline-ka ku soo jiro labada dawladood ay ka wada shaqeyn doonaan oo ay ka wada hadli doonaan waxaa ka mid ah caafimaadka, cimilada iyo deegaanka, maaliyadda iyo bangiyada, tayada iyo heerarka badaha, shaqaalaha iyo heshiiska shaqada shaqaalaha ama laborka, maamulka qaxootiga. intaas waa inta kooban. ugu dambeyn waxaa sidoo kale la isku raacay in shirka midka xiga lagu qabto Soomaaliya sanadka 2027. Axmed British warbaahinta qaranka, Kampala, Uganda.